السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ورقية عبدي waxaan ka hadlaynaa habka ilmo korinta loo yaqaano dabacsanaanta ama permissive style. waxaan ka soo hadalnay casharkii hore guud ahaan muxuu yahay habkan. haddana waxaan ka hadli doonaa dabeecadaha lagu yaqaano waalidka dabacsan ama isticmaalo habkani permissive-ka ah. waalidkan muxuu yahay ama ma fiican yahay haddana ma taalo. waan ka hadli doonaa koorsada dhammaadkeeda sababtoo ah waxyaabahan waa wax loo kuurgalay la bartay cilmi baaris lagu sameeyey ma aha mala awaal layska soo alifay, laakiin markii la bartay waxaa la daraaseeyey habkan waalidka dabeecadan leh muxuu ku sameynayaa ciyaalka. marka insha Allah tacaala arrintaasi waan ka hadli doonaa ayadana. marka muhiimadda waxay hadda anaga diiradda saaraynaa wanaaga iyo waxbarashada iyo guusha caruurteena. waxaan u baranayna dhan waa saas, ma aha inaan isxukmino ya aan niraano alla waan xumahay alla waa fiicanahay. laakiin waxaan idin soo sheegay hore idinkugu soo sheegay inaad yeelataan notebook aad ku qorataan. dhinacan aad ku qoratid waxaan casharkan aad ka fahmaysid, laana mar walbaba markaad cashar qaadanaysid waxaa fiican ugu yaraan 2 pointi inaad qoratid oo ah waxaan ka fahmay, ama wixii casharka dee ha ahaado waxaad waafaqsan tahay waxaadan waafaqsanayn, waxaad isleedahay waxaan dee wax fiican ma aha ama wuu yahay, laakiin maxaa ka fahantay casharka inaad inaa qoratid reflection inaad samaysid ku dadaburtid. dhinaca kalena dabeecadahan hadda aan soo sheegi doono qor haddii aad adiga tahay qof isticmaalo ama qofka leh dabeecadahan oo kale adiga oo again aana isxukminaynin. arrintaas aad ayay muhiim u tahay mar walba waxa baranayno inaan open mind lahaano. marka maxaa lagu yaqaanaa waalidiinta kor waan dulmari doonaa, deep ma ugu wada hadlayno, laakiin just waxaan rabnaa inaan fahno. marka hore waxaa ka mid ah waalidka wax kasta uu ilmaha weydiiyo wuu ogolaadaa. hooyo kana u baahanahay sii haye. hooyo caawo waxaan rabaa saaxiibada inaan lasoo seexdo haye. hooyo waxaan rabaa caawo saaxiibada inay guriga soo seexdaan haye. meesha marka su-aal ma jirto ama hagid oo cunugan la hagayo. cunugiyo laga yaabo in uu jecel yahay wax walba inuu sameeyo, haddana haddii aadan la jaan qaadin koritaankiisa oo maxaa meesha ka socda aadan ogeyn oo aad isleedahay cunugan dee haye un iska dheh, natiijo ayay leedahay, saameyn ayay ku yeelanaysaa cunugaasi. dariiqo la raaca la-aan ama rules aan guriga ka jirin. matalan subaxdii marka lasoo kaco kale muxuu ahay waa in salaada meeshaan aan ku wada tukanaa oo kale waa sharci matalan oo guriga aad u dejin kartid, laano adiga waalidka moogta. alaabta qofka dhaqaayo, qofkaanaba alaabta rabtaa inuu dhaqo, qofkan waxaa rabtaa inuu musqusha hagaajiyo. adiga marka gurigii waxbaba lasku sheegayo maba ka jiro. waalidku wuxuu ku dadaalaa inuu raaligeliyo ilmaha mar walba. wuxuu raaligelinaa, wuxuu rabaa inuu ma arkino saaxiib la noqdo inta uu isticmaali lahaa awoodiisa waalidnimo. uu isdhihi lahaa dee cunugan dee ilan cunugan adigu ku fiirsanaya mogta. waxaa kaloo jirta waalidka inuusan isticmaalin awoodiisa waalidnimo. again awood baa leedahay, awooddaadi ma aha inaad abusive noqotid matalan cunugan maanta dhan aad ama aad garaacdid ama si, laakiin awood baad leedahay. awooddaadi si xikmad leh haddaadan u isticmaalin cunugan koritaankiisa wixiisa dhan saameyn hadhow way kasoo baxaysaa. wax walba hadal aad samaynaysid iyo sidaa ula hadlaysid run ahaantii haddii aad really aad u akhrisid ama aan u akhrino waad yaabaysaa oo mararka qaarkood waa shalaynaysaa. waalidiin badan
ayaa jirto waxyaabo qaarkood intaan u sheego sababtoo ah haddii ilaahay subxaana watacaala cilmiga ku baray haddii aad ka qarqarisid faa'iido ma laha moogta waan u sheegaa cunugan de waa saan haddaad saan loo soo dhaqantay saan buu noqonayaa qaarkood marka waalidiin ilmeynaya jiro dhahaya de anigu maalin ogeyn saan baa dhacday arrintaasna kuley waa garwaaqsi ma xumo laakiin waxaa xun in aad rajo beeshid oo aadan isdhihin ama aad isdhahdo dee rajo maba lihid basaan baad cunug kusoo samaysa failure baa tahay taas ayadana ma ah mid aan rabno laano waxay kasoo horjeedaa open mindka aan rabno iyo waxbarashada aan u rabno ilmaheena arrintaasna waan ka hadli doonaa koorsooyin dambe ayaan ugu hadli doonaa haddii wax soo dhaceen ama taraamo soo dhacday ilmahani seed usoo ceshanaysaa way ayaa jiro casharkeena saddexaad oo qaybtan labaad waxaan kaga hadli doonaa saameynta uu ilmaha ku leeyahay habkan dabacsanaanta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.